بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سورة وذولاليال دمانتي وين سلام يا ملك عالم كي جلس عتان إلهي سبحانه وتعالى يا مهدس كله مركز وكان سعلي إلى سبحانه وتعالى يا مهد يهيبد يا شرف يا كرامه يا مان إسكاله إلهي سلام كنا جديجي أنو حوج يحيلد منك وكانسن الحمد لله نعمة الإسلام الحمد لله نعمة الإيمان الحمد لله على كل حال الحمد لله دائما وأبدا الحمد لله الشكر لله سورة وذولاليال إلى سبحانه وتعالى دنبيدين إيه دنبيد والدينتين هدافو انت حنوسن الله عافية انت مروجيسن مرقت الله كدر قاضو انت مراد كل مراد كوضا خير الله سيو انت دمتين الله نحرست قبريده واسعية قداشون الله نما في النية آمين يا ربي سورة وذحباي في الله ما ننتين يا هبين كنا وكوا خير قبل الله نوغريو كوا عبادة قرح بدن لي ماذا الله نغريو كوا إن بدن إلهي سبحانه وتعالى حساء الله نغريو آمين أحباب في الله سورة وذا ما أنت وما ننتي معاه وما ننتي لسلام تري حبيبك يا هبين كدبا إن بدن أكو صلينا النبي عليه الصلاة والسلام نور كلبض ويك سورة الكهف نها هلمامنا آخرسو سيدو كل ساعة الإجابة كتير تمارين تجمع ذاك فايديسو إله رحمنك يا رحيمك وحول بمراد الله ذهي إلهي هردقو إلهي سبحانه وتعالى كما خسارين دونه sidoo kale walaalaha qaaliga waxaan idin xasuusinayaa inay inoo bilaabanayso ayaamul biidkii maalmihii la soomi jiray bil kaste 3 bari laga soomi jiray sabtida ayay bilaabanayaan oo maantay oo jimco ah bisha rabiicul aakhir waa 12 weeye caawa oo sabti soo galayso baasoon kala xiranaya walaalayaal halkaas kala socda insha Allah walaalaha in badan u sheegay waxay ugu dhaheen walaal si maalmahaas aan ku garanno ma garanayno marka sidaa darteed baa u soo gudbiyay walaalayaal maanta oo 27 bisha ay tahay taariikhda caadiga ah ee October rabiicul aakhirna waxa weeye 12 sabtida ayay 13 noqonaysaa maalmaha la soomana waa 13ka 14ka iyo 15ka weeye ayaamul biidka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay qofkii bil walba 3 bari ka sooma wuxuu la mid yahay asagoo sanad soomay ayuu la mid yahay maasha Allah tabaarakallah aan ka faa'iideysano ayaamul biidka soonkooda walaalayaal markii aad afuraysid mustajaaba ku jirto ducayso adiga islaamkana u ducee walaalaheen Falastiin aan u duceyno galabta oo jimcaha oo saacatul ijaaba ku jirto iyo maalmaha khayrka badan oo ayaamul biidka walaalaha soomaya ee ducaysanaya walaalaheen Falastiin waxa la maagan yahay dhibaato weyn gaaladiga u tashteen waxa rabaan dagaal dhulka ah in lagu qaado oo inta hartayna la dhameystiro ayaa la rabaa oo lagu tashtay marka walaalayaal annaga waxaan u awoodno waa duco walaalaheena u duceyno inuu Ilaahay quweeyo Ilaahay nasriga siiyo inuu Ilaahay cadawga ka qabto inuu gaal iyo yuhuud Ilaahay jabiyo inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala junuud Ilaahay xaqiisa ka ahaato inuu Ilaahay u soo diro walaalahood iyo garabkooda iyo islaamkooda way ku fiirsanayaan dadka ilmaha yaryarka saqiirada ee madaafiicda iyo hubka waaweyn la dhacay way ku fiirsanayaan maanta waxay waayeen shidaal ayada oo dalalka islaamka kaliya shidaalku ka yimaado shidaalka caalamkaas oo dhan lagu dhaqaajiyo ayadoo dalalka islaamka uu ka yimaado bay waxay waaye isbitaaladii wax qaliin lagu sameeyo wax maxay sheegmay lagu soo qaado dhaawacyadii wax meydadka lagu aasaa la waayo walaalayaal marka aan duceyno walaalaheen inuu Ilaahay garab siiyo inuu islaamka u soo jeediyo inuu Ilaahay heel siiyo xaqiisa ka ahaato inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala u soo diro أنا دعينا ولا لهن فلسطين لبعته وين بهايستا مال والبوالله حري وحي كتشران حبسي كركبنا لي كتشران وحنون والله الماير الكامان والبمدافع ذا دعيو قال قفكي إسلام أو تاجرة لو دارنا يو ما أنتنا إسلامكي ضعيف نمو ay halkaas ka marayso walaalayaal shidaalkii wadan islaam ka soo baxayay in loo diido in dhaawaci ama lagu dhibto maxay qaliin loogu sameeyo qofkii islaamka ahaa ee Falastiinka ahaa la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah ilaahu nagu ciqaabin dhibaatada walaalahaas loo geysanayo ku fiirsanayno Ilaahay subxaanahu wa ta'ala quwwad xaqiisa ka ahaatay junuud ha u soo diro aanu duceyno walaalayaal duco bas u awoodnaay
waxa guda galnaa axbaab filaa qisaskii laga arkay saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saacatul ijaabada ku jirta maalinta jimcada. qisada koobaad axbaab filaa gabar baa ila soo wadaagtay. gabadhan waxay tiraahday walaal Faadimo waxaan kamid ahaa bay tiraahday dadka YouTube-ka ku xiran ee ilaahay dartii ku jecel wax badan baan ka faa'iiday abaayo. qisadaydu waxay ahayd bay tiri gabar yar oo reerkooda la nool ayaan ahay waxaan bartay bay tiri saacatul ijaabada ku jirta maalinta jimcada iyo saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam waan bilaabay inaan ka faa'iideysto maalin walbo jimca ima dhaaftay tiri saacatul ijaabada. marka hore saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaan aad u badiyaa bay tiraahday. kadibna waxay tiraahday saacada markii la gaaro bacda alcasar ayaan aad u ducaysan jiray bay tiri. waxaan u ducayn jiray bay tiri aabahay inuu ilaahay shaqo fiican noo siiyo markaas shaqo yar oo aan ugu filnayn abiyuu aabahayay bay tiri hayn jiray. alxamdulilah shaqo fiican mushaar fiican buu helay aabe nolosheedii way noo qurxanaatay bay tiri alxamdulilah. haddana waxaan galab jamco ah oo galbaha jimcaha kamid oo weliba uu roob da-ayay ayaan saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam aad u badiyay iyo ducada. waxay tiri waxaan u duceyn jiray bay tiri walaalkay oo iga yar bay tiraahday oo naga xanuunsan neerfe ahaan ayaa loo hayaa u xanuunsan yahay uu nala dagaali jiray bay tiri waxna nagama cuni jirin aad baan waxay tiri isku dhibanayn waliba aniga aad buu ii nimcaa bay tiraahday. galabkaas jimcada ee roobku da-ayay ayaan aad ugu duceeyay bay tiri inuu ilaahay subxaanahu watacaala walaalkeena ogoleysiiyo cunada mid naga cunana ilaahay ka dhigo inuu ilaahay subxaanahu watacaala waxay tiraahday dhibaatada aan isku qabno ilaahay naga dhex qaada ayaan ku ducaystay bay tiri. masaajidka baan waxay tiraahday aan joogay bay tiri markaa ducaysanayay oo waxay tiraahday halkaas ayaan u aaday bay tiri inaan khalwo maca allah ilaahay inaan la khilwooday tiraahday walaalkay ugu soo duceynay. wallaahi waxay tiri markaan gurigii imaaday bay tiraahday wuu idhibi jiray markaan guriga imaaday tiri waan iska qaban jiray bay tiri wuu ila dagaali jiray. habeenkaas waxay tiri wuu islaamay oo wuxuu yiri walaala see tahay ma wanaagsan tahay alxamdulilah. waxay tiraahday walaalkay cunadii buu naga cunay waxay tiri si wanaagsan buu noola dhaqmay caadi buu wuxuu tiri noqday laakiin weli xanuunka ilaahay subxaanahu watacaala kama dulqaaday xanuunkii oo dhan kama wada tegin laakiin dhibaatadii aan isku qabnay buu ilaahay naga dhex qaaday. waxay tiri walaalkay waan u ducaynayaa walaalayaal idinkuna igu soo duceeya inuu walaalkay ilaahay noo caafiyo. wiilkaas bay hooyada wiil ka dhashay ilaahay subxaanahu watacaala inuu xanuunka ka dulqaado igu soo duceeya. qisaskaas ayaan ka arkay saacatul ijaabada maalinta jimcada iyo saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam in aabahay ilaahay shaqo wanaagsan noo siiyey sidoo kale walaalkay inuu ilaahay wanaagna dhex dhigay oo nacaybkii iyo wixii uu noo qabay walaalkay xanuunsanaa inuu ilaahay naga dulqaaday alxamdulilah. walaalkay hadda uu caadi u nala dagaalayn laakiin xanuunkii 100% kamuusa biskoon igu soo duceeya bay tiri insha allah u soo duceeya walaal ilaahay walaalka ku caafiyo ducadana u wad galab kasto jimca u duceeya ilaahay subxaanahu watacaala uu ka dulqaadaya insha allah bishaarayso. qisada labaad axbaab filaa gabar baa ka sheekeynaysa waxay tiri waxaan u baahday bay tiraahday gabadhan shaqo waxaan u fariistay bay tiri saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam galabkii khamiistu ka baxaysay ilaa galabkii jamcuhu macnihii ka baxayay ayaan waxay tiraahday u fadhiyay bay tiri allahu akbar. waxay tiri wax yar oo aan seexdo maahane inta kale nabiga calayhi salaatu wasalaam saligiisa ayaan afka ku hayay. waxay tiraahday subaxii sabtida waxaa la ii keenay bay tiri 2 shaqo ayaa la ii keenay bay tiri midii wanaagsaneyd ayaan doortay bay tiri waxaan u baahday bay tiri oo haddana dhib igu noqday bay tiri shaqadii gaariga aan ku aadi lahaa bay tiri waxna ma aanan hayn bay tiraahday. jamcadii xigtay ayaan u fariistay bay tiri sidoo kale galabkii khamiista ayaan fariistay saliga nabiga afka saaray ilaa galabkii jimcuhu ka baxay sabtida soo galaysay ayaan afka ku hayay bay tiri alxamdulilah. walaalkay iga weyn ayaa ii yimid buu dhahay walaal wuxuu yiraahday waxaan maqlay inaa shaqo heshay oo shaqada shaqo fiican ay tahay aysa kaa fakanin gaari aa ku aadina aniga ayaa kuu gadaye kaala soo dooqo allahu akbar maasha allah. waxay tiri walaalkay ayaa gaarigii ii gaday culayskii ilaahay baa iga dulqaaday. qof kasto islaam ah oo waxay tiraahday culays dareemaya ha ka faa'iidaystay tiri saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam wallaahi faraj aan cajiib weeye aniga ayuu ilaahay i tusay oo hordhigay allahu akbar. isma lahayn walaalkaabaa gaari kuu gadaya isma lahayn shaqadaasaad helaysaa laakiin ilaahay xaggiisa wax ka culus ma jiraane asbaab wanaagsan baan haysanaa aan ugu tagna ilaahay bay tiri maasha allah. gabadhaas ilaahay subxaanahu watacaala
qalbigaygii wanaagsanaa iyo waxay tiri isku xirka ilaahay aan talada u dhiibtay aanu bin aadan baryin ayuu ilaahay subxaana watacaala igu siiyey. allahu akbar axbaabi filah, ka faa'iidaystaa ilaahay subxaanahu watacaala ugu taga asbaabihiisa quruxda badan uu ka mid yahay saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam. qisada saddexaad gabar baa ka sheekeynaysa. gabadhan waxay tirahay culays walba iyo dhibaato walba iyo murugo walbo aan dareemo noloshayda aan wax u baahdaba saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam baa u fariistaa saacado markaan waday tiri ilaahay subxaanahu watacaala wuu isiiyaa bay tiri. allahu akbar maasha allah tabaaraka allah axbaabi fillaah. saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam, nabiga calayhi salaatu wasalaam baa inoo sheegay oo xadiiskii ubay binu kacab nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi rasuulka ilaahay oo ducadayda oo dhan haddaan saligaaga ka dhigo ka waran. wuxuu ku yidhaahday idan tukfaa hamaka wayaqfiru dambaka, ilaahay subxaanahu watacaala dembigaagu ku dhaafayaa, humuumta iyo dhibaatadana ilaahay wuu kaaga saarayaa. waa run nabiga calayhi salaatu wasalaam saasuna yiri waa inaan rubaysano oo mar walba oo dhibaato nagu dhacdo mar walba aan rabno inuu ilaahay axwaasheena adduunyada iyo aakhiradaba ilaahay noo fududeeyo waa inaan saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam u fariisanaa. qof walbana qof intuu ka dikri badan yahay ka xus badan yahay macnihii ilaahay isku xirkiisa uu ka badan yahay ka cibaado badan yahay ilaahay waa uga dhow yahay walaalayaal. taas ogsoonow saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam gabadha qof 24 saacadood saacado yar seexday ama 24 saac dhameystiran meel u fadhiyay saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo qof aanu saac fadhin ma isku meel bay galayaan ma galayaan axbaabi filah. marka saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam badsano in badan haddii aa macnihi muraad leedahay sidaas oo kale walaalahaas aan qisooyinka ka soo sheekeeyay insha allah dadaal weyn gali waqti gali wax walba oo adduunka waqti la galiyo adduuni aakhiraba waa lagu guuleystaa. marka ilaahay subxaana watacaala hana guuleeyo rabbul caalamiin ku hanaga dhigo kuwa waqtigood iska dayici waa lagu weydiinayaa waqtiga laakiin waqtiga ku bixinaysid cibaadada maasha allah tabaaraka allah maalin ilaahay hortiisa tagtid waa helaysaa adduunyadaadii aakhiradaadiiba ku liibaanaysaa insha allah ilaahay hanaga dhigo kuwa mar walba ilaahay subxaanahu watacaala uu solonsiiyo khayrka xaqana waafajiyo aamiin axbaabi filah. intaas aan ku ekeynayaa qisooyinkaa soo diyaariya walaalayaal saddexdaa qiso insha allah ka faa'iidaystaa maalinta jimcadana ducaysta islaamkana u duceeya anigana iisoo duceeya walaali anigu waa idin xusuusiyey xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa man dalla khayran ka faacili qofkii qof khayr tusah wuxuu lamid yahay asagoo sameeyey. marka insha allah ducada igu soo dara anigana waa idiin soo duceynayaa si jamaca walaalaheena dhibaataysanna u duceyno ilaahay subxana wataala inuu dhibaatada ka saaro ilaahay subxana watacaala inuu khayr ugu bedelo maalmaha ayaamul biidkana insha allah isku soo duceyno walaalayaal dhammaanteen walaalaheena u duceyno inuu ilaahay guuleeyo inuu ilaahay yuhuud iyo gaal jabiyo inuu ilaahay subxaanahu watacaala garab siiyo walaalaheen oo ilaahay subxaanahu watacaala dhibaatada ay ku jiraan dad la qaybsada oo macnihi garab u noqdo islaamka ilaahay u khasbo ilaahay subxaanahu watacaala uu u soo diro islaamka ilaahay quweeyo gaaladana ilaahay jabiyo aan duceyno walaalayaal insha allah duco uun baa u awoodnaa wabilaahi towfiiq. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.